qaaliga ee nugu hagar baxeen waana isbaran doonaa waa wada sheekaysan doonaa waa wada doodi doonaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa idinkuna haddaa noo timaadaan sidoo kale ayadu nagala kulmi haddii ilaahay ka dhigo anigu waxaan ka mid ahay ergooyinka ka yimid dalka Canada rag badan oo rabo iyo hadda hore u yimid waa jooga ergooyin kala yimid wadamo kale ka imanaya jooga raggaasi waa raggii mataqaana doonaya inay mataqaana la bedelo systemka maanta meesha ka jira oo la rabo in lagu bedelo system ay dadka waqooyiga u dhanyihiin oo wada leeyihiin oo walaaleeya oo cadaaladda mataqaana ku suga cadaaladda maanta maxaan ku raay maamulka Hargeysa uu ku shaqeeyo bal maxaad nooga sheegi karaysaa horta inaga aasaas waxa inoo ah dawladdan United Somaliland States waa sinaan cadaalad iyo midnimo waxaanu sameeynaa wadan aan ina si gaar u lahayn nin walba xuquuqdiisa gaarka dhaqankiisa gaarka iyo deegaankiisa gaarka iyo siyaasaddiisa gaarka inta uu ka heli karo waxaanu sameeynaa iskaashi caalami ah oo ummadda ula tagno oo ah inaanu u simanahay inagoo ah 5 gobol amba 6 gobol ee Soomaaliland oo dhan haday noqoto Awdal Togdheer Sanaag Sool iyo Saaxil intaba iskaashigeenu inta uu ka ballaaran yahay waxaanu tusaale cad u noqonaynaa ummadda Soomaaliyeed ee walaal muddada dheer ku jirtay baabaa iyo burburka waxaanu doonaynaa in aayaha dhan ee ummadda Soomaaliyeed geeyiga joogtaba wax ka bedelo inaguna noqono tusaale cad waxaan maaha unkan ka abuurmay kaliyan maaha Somaliland waa waxaan gaarsiino geeyiga dhan ummadda Soomaaliyeed aayaha ummadda Soomaaliyeed waa isku mid haduu yahay mid koonfureed mid waqooyi mid Itoobiya marka dacwaddan wadnaa waxa weeye waa aaye isbedel weyn 30 sanadood baynu ku jirnay burbur iyo baaba maanta waxaanu doonaynaa ka soo kabanay inagoo wada jira oo iskaashi oo siman oo wax wada leh systemka United Somaliland States muxuu kaga duwan yahay kamaanta Muuse maanta garwadeenka ka yahay horta inagu waxaanu kaga duwanahay laba arrimood baynu kaga duwanahay inagu waxaanu nahay exile government dawlad ka bilaabatay qurbaha laakiin maamul kasta amba horkac kasta wuxuu ka bilaabmaa inta badan qurbaha haddaad eegto SNM oo kale qurbaha ay ka bilaabatay waxaynu kaga duwanahay inagu markii ugu horeysay inagu waxaan nahay dad ku heshiiyey muuqaalo guud iyo astaamo guud astaamahaas gundhigoodu yahay wada jir iyo iskaashi iyo sinaan iyo cadaalad inaan waddanka Somaliland aanay qolana gaar u lahayn haddaad SNM ahayd iyo haddaad darwiish ahayd iyo haddaad ahayd qoladii reer Awdal intaba iyo haddaad ahayd maakhir intaba waddankani waa waddankaagii cid kaale hela ma jiro waynu u simanahay waxaan inaga inaga gooyn nabiguma suurto gelin karo waxaan raali ka nahay baa waddanka ka suurtoobi kara marka iskaashigeenu waa mid aad iyo aad u ballaaran waxaynu kaga duwanahay inagu deemanihiin dad ku dhaqmaya xeerkan la yiraahdo qabyaaladda ee position kasta lagu abuuray qabyaalad waddankii dhaxal rogay buurihii badii ugaadhii wax kasta galaya inagu waxaan nahay dad dalka jecel deegaanka jecel ummadda jecel mustaqbalka ayada sugaya marka waxyaabahaas oo dhan kaga duwanahay iyo waxyaabo intaa ka badanba hadda waxaan la soconaa in waddankii dhammaantiiba la iibiyey maxaad fariin u marin lahayd Muuse Biixi iyo waxaan ku leedahay ragga maanta Hargeysa xukuma ee rabo dalka dhammaantiiba dhaxay wareejiyaan ee u wareejiyaan mataqaana Ethiopian iyo Imaaraat waxaanu leenahay dalka Soomaaliya horta maaha xaraash hantida ummadda Soomaaliyeedna xaraash maaha nabaad guurka ummadda ku socdaana waxa weeyaan mid aayaha dhaxal wareejinaya marka waxaynu nahay inagu dadkii waddanka lahaa baynu nahay inaanu uga tagnana maaha inaynu ka ogolaanana maaha nasiib wanaag adduunkii oo dhan maanta jeegaanta uu ka soo horjeestay waxaan doonayaa markaan in la ogaado adduunka oo dhan maanta jeegaanta uu ka soo horjeestay hadday tahay Djibouti hadday tahay Turkiga hadday tahay Qatar iyo hadday tahay Soomaaliya iyo hadday tahay Itoobiya laftigeedu ummadda Soomaaliyeed ilaa xitaa United Nationka waxay diidan yihiin in xaraash ummad Soomaaliyeed oo aan dawlad lahayn xoog lahayn iyo tayo lahayn waddankeeda la xaraasho loo xidho dawladda Carbeed marka marinada badda ee aanu leenahay iyo buuraha iyo hawada intuba maaha xaraash waddanka inaga la mustaqbalkiisana inaga la aayihiisana inaga la cid xaraashi karto cid iibin kartaana ma jirto waa waxyaabaha uu taaganay oo waxyaabaha waddankii geeyno wax ka soconayana haba yaraatee ma jiro ilaa hadda ma jira xidhiidh caalami ah oo la sameeyeen maxaan ku rahaa beesha caalamka aad iyo aad walaal way jiraan xidhiidhada caalamiga ah inkastoo xidhiidh kastoo caalami gundhigiisu yahay xidhiidhkan inagu wada yeelano xidhiidhka caalamiga horta qodobka ugu horeeya waxa weeye xidhiidhka ummadda Soomaaliyeed kaasaa dhala xidhiidh kastoo caalami ah xidhiidhka caalamiga haddaan ku ila taabto 3 waddan baa ugu muhiimsan waa Turkiga waa Qatar iyo dawladda Soomaaliya wax kastaan waxay ka bilaabmaan inta badan waa dawladda Soomaaliya weeye xidhiidhka qura ee lagu guuleysan karo haddii yahay dawladda Soomaaliya taas ayaa furo u ah Qatar taas ayaa furo u ah Turkiga taas ayaa furo u ah magaalada London iyo Europe oo dhan waayo dawladda kaliya la aqoonsan waa dawladda Soomaaliya haddaad tixraacdo jeegaantu waxyaabaha ay ku heshay fursadaha qaaligaana waxa ka mid ah furayaal ay ka heshay dawladda Soomaaliya marka xidhiidhkan horta koow waa inaga dhexdeena xidhiidh wanaagsan oo inaga raali aynu kala nahay inuu bilowna wada jir leh ka aynu gudbin doona ummadda Soomaaliyeed geey kasta joogto kaasa marka dhali doona xiriirka caalamiga marka xiriirka caalamiga waxa inooga horeeyo xiriirkeena ka labaadna waxa weeye xiriirka caalamiga weey
bisha 4 كده waxaa dhaci doona shirweynihii ugu horeeyay maxaad fariin u marinaysaa shacabka maxaan ku raadinaa Soomaaliland state iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba shirkaas horta waa shir aad iyo aad u muhiim ah waa isbarasho guud weeye midda kale waxa weeye waa qiimeyn sidoo kale la qiimeynayo dadku wixii raacsan dawladdan iyo wixii aanay daacad ka ahayn arrinkani marka shirkan wuxuu ku salaysan yahay horta kow loo gudbiyo ummadda guud ahaan Yurub degan United States of Somaliland iyo waxyaabaha ay xambaarsan tahay iyaguna ay ka hawlgalaan arrimahaas marka shirkan waxa weeye waa fursad qaali ah oo aynu isku barayno qolooyin badan aynu ku soo macsuulinayna qolooyinkii ku lug ah xisbiyada mucaaradka qolooyinkii dawladda ka soo horjeeday wixii oo dhan waa weel cusub aynu doonayno inuu ku abuurno unkan cusub waxaana rajaynaynaa dadku ka soo qayb galaan oo ay dhageystaan dacwadeeda qoloba mar baa la dhageystaa qoloba mar bay bilaabantay mar haddii evolution amba revolutionkii lagu qaaday Soomaaliland la isku ku bedela doorashooyinka hab xalaal ah u shaqayn waayay waxaanu jecelahay in la eego dawladdan government next time waxay tahay waxaan kaloo dareemayaa inaanay weli dadku fahansanayn government next time dawladdan waxay u taagan tahay inaanu iyagana ka dhaadhicino oo ina dhageystaan oo fahmaan marka shirkan waa shir muhiim ah waana abaabulkii koowaad ee waddanka ku kala kicinayna abaabul inta leg bas leedahay waa laga hawlgalay maxaan ku raadalka Ingiriiska abaabulku aad iyo aad buu wanaagsan yahay runtii abaabulku waa abaabul socday imika bil waxyaabo badan oo isugu jiray marka intaan ka arkayo aad iyo aad bay dadkii isxilqaamay ugu mahadsan yihiin waana ku faraxsanahay soo dhaweyntan qiimaha badan leh maanta aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mudane Mustafa Maxamed Martin oo ah madaxweynaha United Somaliland States haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka warfaafinta oo ah abaabulaha qabanqaabada shirweynaha United Somaliland States mudane ku soo dhawow ودوهي آبانا ندين سلامي أدمان تيمبا waxaan jecelahay inaan maanta ku soo dhaweeyno Maxamed Mustafa Mideeye magacaasa cusub oo la baxay waxa weeyaan waa mideeyaha ummadda reer Somaliland meel ay joogtaba cid maanta ka maqan ma jirto Somaliland United States of Somaliland cid maanta ka maqan oo reer Somaliland oo filimaya inay jirto waxaanu leenahay ku soo dhawow madaxweynaha ku soo dhawow dadka ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow ummadda oo midaysan isuguna imanaysa shirka 13 Abriil gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waa salaad hore waa subaxnimo hore dadka badidiisu way hurdaan laakiin intii soo gaari karaysay waa ay yimaadeen waxaanu leenahay ummadda ku soo dhawaada cadaaladda iyo sinaanta iyo horumarka iyo wax wada lahaanshiyaha waxaan rajaynaynaa in ummadda Somaliland ay qaadato mabda'an ah wax kala lahaanshiyaha waxna wada lahaanshiyaha marka ummadda waxaanu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo ummadda inta kale ee noo timid aad iyo aad bal waxaad naga warantaa abaabulka aad ka gasheen dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London abaabulkaasi wuxuu socday muddo iminka 3 wiig uu socday meel wanaagsan buu marayaa ummadda aad bay ugu faraxsan tahay runtii aad bay noo soo dhaweysay aad bay hamadooda ummadda iyo niyadooda u wanaagsan tahay runtii waxay heleen maanta chance ama fursad ay dadku u arkeen ay kaga baxaan qoolka ay ku xidhan yihiin iyo godka lagu awday inay kaga baxaan bay ummaddu u aragtay waxay u arkeen inay chance-ka kaliya ee noloshooda ay ku badbaadin karaan cadaalad ku badbaadin karaan sinaan ku badbaadin karaan midnimo ku badbaadin karaan ee kaliya systemkan uu yahay iyo xukuumaddan cusub oo macnaheedu ma aha xukuumad qaata laakiin waa systemka ayaa ah system cusub oo ummadda Soomaaliyeed ku cusub iyo geeska Afrikaba iyo Afrika dhamaanteedba waa systemka kaliya ee ay wax ku wada lahaan karaan waxna wada lahaan karaan marka waxaan leenahay ummaddu ilaa xad ummaddu way soo dhaweysay waanay ku faraxday runtii waana maalintay sugayeen iyo chance-ka kaliya ee ay sugayeen way aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane wasiir waan kaga mahadcelinayaa waraysiga aad siisay ee telefishinka يا هلا يدي halkan aan joognaa waa Heathrow International Airport waa soo dhaweyntii madaxweynaha iyo wafdiga la socda oo maxaa taqaanaa ka dhacaya dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa okay intaas waxaan nagu dhamaaday waraysigeennii waxaanan kusoo gabagaynaa waxaan dhammaantiin waxaan leenahay saas iyo nabadgelyo iyo kulan wanaagsan iyo habeenka maxaan ku raadayay 13 bisha jimcaha haddii la yiraahdo 7 habeennimo iyo isku iman doonaa xafladda weyn ee la qaban doona haddii la yiraahdo aad baad u mahadsantihiin waa salaamna dhammaantiin waxaan leenahay saas iyo nabadgelyo